habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada warka habeenee idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayna waxaa ka mid ah wada mooto bajaaj oo goordhow lagu dilay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir dagaal u dhexeeya militariga Soomaaliya iyo al-shabaab oo siyaabo kala duwan kaga dhacay degmada Afgooye iyo duleedkeeda madaxweyne Farmaajo oo maanta booqasho ku taga deegaano dhawaan ay la wareegeen ciidamada dawladda ee gobolka Shabeellada Hoose faahfaahin laga helay qarax miino oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda dawladda Sacuudiga Puntland oo la sheegay inay xabsi guri ka dhigtay taliye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari hogaamiyaha dalka Kuuba oo Kenya iyo Soomaaliya kala hadlay sidii loo sii deey lahaa dhaqaatiir u dhashay dalkaasi ay afduubteen al-shabaab dib u dhac ku yimid wada hadal u bilaaban lahaa ururka Taliban iyo dawladda Afghanistan markale habeen wanaagsan waa Jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 19 bisha afraad Abriil sanada 2019 warkaasi oo fidsan waxa caawala diyaara Farxiyo Xuseen Cali waad maasan tahay Maxamed Cali Maxamed habeen wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya xaafadda Joongale ee degmada Yaaqshiid waxaa goordhow halkaasi lagu dilay wada mooto bajaaj rag ku hubeysnaa bistoolada ayaa la sheegay in ay dilka geysteen waxaana la tilmaamay inta aysan dilka geysan ka hor dadkii halkaasi jooga ay rasaas ku kala eriyeen sida goobjoogyaalkeen in ay u sheegeen intaasi kadibna ay dileen wadaha mooto bajaajka halkii uu dilka ka dhacay waxaa haatan ku sugan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo baaritaano ka wada hadda wixii warar ah ee ku soo kordha waxaan ku soo qori doonaa page-keena Radio Kulmiye dagaal u dhexeeya militariga Soomaaliya iyo al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan waxa uu kaga dhacay degmada Afgooye iyo duleedkeeda dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay deegaano dhawaan ay la wareegeen ciidamada dawladda ee gobolka Shabeellada Hoose Yunis Duraan Cali ayaa ka waramaya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal maanta gelinkii dambe dagaalamayaal ka tirsan shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku dhexmaray deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose dagaalka oo ahaa mid ay shabaab ku soo qaadeen deegaanka Mareerey oo hoos yimaada Afgooye oo saldhig ciidan ay ku leeyihiin ciidamada militariga Soomaaliya labada dhinacyeentu dagaal ku socday waxay isku adeegsanayeen hub culus oo laga maqlayay tuulooyinka u dhow deegaanka wararkan ka helayna deegaankan ayaa sheegaya in labada dhinac uu ka soo kal gaaray dagaalkii maanta qasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in shabaab ay ciidamada militariga ay ka qabsadeen gaadiid dagaal iyo hub sidoo kale dagaalka kadib ayaa rag kale oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab waxay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin xaafadda Boolofolio oo kamid ah xaafadaha ku yaala degmada Afgooye dagaalka oo in muddo qaatay ayaa dagaalamayaashii weerarka soo qaaday waxa ay dib uga laabteen fariisimihii ay weerarka ku soo qaadeen dagaalka kadib ayaa dadka deegaanka waxay arkayeen diyaarado helicopter ah oo dul heehaabaya hawada degmada Afgooye dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday deegaanadii ciidamada militariga Soomaaliya ay ka qabsadeen dhawaan dagaalamayaasha shabaab ee ku yaala gobolka Shabeellada Hoose deegaanada uu maanta madaxweynaha Soomaaliya tagay ayaa kamid ah Sabiib Caanoole iyo tuulooyinka hoos yimaada inta uu booqashada madaxweyne Farmaajo ku jiray waxa uu kula kulmay deegaanadii uu maanta booqday saraakiisha ciidanka militariga ee hogaaminaysay howlgallada lagu qabtay deegaanadan waxaana isla gelinkii dambe ee maanta ayuu madaxweyne Farmaajo dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho oo markii hore uga baxay safar dhanka hawada ah